gooyey dad badan baa waalidkoogii ay leeyihiin wuu dhintay ma noola waalidkan waxaa leeyahay dhalinyarta la soo xidhiidha madarkiisin walaalayaal waxa dhacaya haddaba barnaamijkan galo nin ilaahay ku xidhan tiirka ku xidhan mooye oo sidaa sheekha yar sheekh noqday mooye wallaahi inuu nin kale ka badbaaday runtaan nii sheegaya walaalayaal in maskaxdiisa iyo miirkiisu joogto oo beydka ilaahay ku xidhan iyo tusbaxaa wata mooye nin kale inuuna ka badbaadin wifor waxaan imanay dad adduunyo kala duwan baan iman oo kala dhaqan duwan haddaad diintaada xadsan weydo oo waxyaabaha draagiska ama khamrigan la cabaya aad iska ilaalin weydo oo ilaa khamrigu waa free weeyaan laakiin haddaad iska ilaa waddankaagii kumaad heli jirin laakiin haddaad iska ilaalin weydo waxaad noqonaysaa derbiyadu baad jeejeedi aakhirkana qofunbaa dil amaadunbaa lagu dilaya dhalinyartii walaalayaal waalibay ku dhow yihiin ama cajiib wiil isku daldalay ama warqadna qoray inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun dalka jarmalka isku daldalay oo joogay muddo gaadhaysa 25 sano ninkaasi waxaa lagu leeyahay waxba kama dhinayn laakiin uu isla hadlay bal u fiirsada haddaba markaan ku leeyahay waa tiirka alla ku xidhnow ama dhaqankaaga xajisa markaan ku leeyahay waa taasoo kale okay warbixinta waan galaynaa wiilka isaaq ay ku dilay labada hablood qabiilada ay kasoo kala jeedaan ahwiya qaabka ay ka yihiin iyo wiilka dambe oo inuu dilo doonayay bal sheekada yani nii haya oo la yaaba inta badan wiilka isaaq gabadha hawiye uu qabay oo hal cunug ba u haysay bal sheekada anay nagu soo noqonaya dumarka uurka leh ka dheeraada walaalayaal sheeko noocan oo kale ka dheeraada soo dhawaada walaalayaal barnaamijkeena ku furano hawiye ku dhawaaqay inuuna farmaajo madaxweyne ahayn kuna dhawaaqay inuu yahay madaxweyne qabiil oo mareexaana dhammaan hawiye oo ku dhawaaqay shir ay iskugu yimaadeen maanta ku dhawaaqay hadalka ay ku hadlayaan adiga ooyi doona ama yaabi doona hawiye farmaajo waxay yidhaahdeen madaxweyne maaha waxayna ku cesheen inuu yahay madaxweyne mareexaan waxay ku cesheen inuu yahay madaxweyne qabiil haddaba ma ku raacsan tahay hadalka hawiye ay farmaajo ku tilmaameen madaxweyne qabiil ama madaxweyne inuun ahayn okay waxaan ku tusayaa hadalkii hawiye ku hadlay maanta shirkii maanta ay ku dhawaaqeen farmaajo waa qabyaaladiiste farmaajo waa mareexaan farmaajo madaxweyne maaha iyo hawiye ku dhawaaqeen shirkana waxaa joogay ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre waxaa joogay sheekh shariif baa joogay waxaa joogay xasan cali khayraa joogay dhammaan say u dhannaayeen madaxweyneyaashii soo maray dalka way joogeen farmaajo sida loo nacay madaxweyne loo nacay weligay imaan soo maray intaan barnaamijtaa dihinayay ama intaan ku jiray barnaamij walaalayaal madaxweyne farmaajo wax badan oo qabtay laakiin qaabka loo nacay anigu weli waan sheekadaasi dib baan ugu noqon doona laakiin madaxweynahani wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyey xagga ciidanka dhisa buu ahaa imika waxaa nii hayaa ciidanka kenya maanta waxaa lagu jabiyey dagaal baa lagu jabiyey oo dhanka bered xaawo dagaal xun baa lagu jabiyey oo ciidanka ay ku jabiyeen la yidhaahdo gorgor ama haramo cadniba sida u yaqaana iyo danab ciidankii kenya maanta wax baktiyey iyo wax dhintaa laga dhigay wax meydkoogii ka cararay dagaalka nimanka la galay waa nimankuu farmaajo soo tababaray u geeyey bay ahayd turki u fiirsada ilaah baan inagu dhaashay kenya rag tababaran oo qalabkoogu u dhamaystiran yihiin maanta dagaal ku jabiyeen maanta raynraynta ka dhacaysa gobolladii gado iyo bered xaawe iyo maskaxdaada waad la yaabaysa haddaba soo dhawaada walaalayaal farmaajo wax badanna u qabtay laakiin hawiye qaabkan uu u nacaya ama u diidan yahay waxaan isleeyahay waxbaa jira kolleyba laftu meel bay ka qurunsan tahay walaalayaal laakiin waan eegi doonaa haddaba farmaajo waad arkaysiin 4 sano ayuu koray maanta sanadkii 5aad baa u dhammaanaya bisha 2deediina way ka dhammaatay xilku walaalayaal qaramada midoobay ama UN waxay soo saartay in si degdeg ay iskugu yimaadaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu haddii kale ay cunaqabatayn soo rogi doonaan loo bogin farmaajo waxaa laga codsanayaa in ay wada fadhiistaan ra-iisul wasaaraha waxaan kaloo inii hayaa maamul goboleedadii oo albaabka ka xidhay ama diiday ra-iisul wasaaruhu inuu kasoo qayb galo shir ay ku lahaayeen garowe waxay yidhaahdeen ra-iisul wasaarihii waad ogeydeen in farmaajo oo xil ka qaaday ama uu ka xayuubiyey
أما سانديسي أما شرفتو لها أما أودو لها وكي فرماتشا كل واقعي إن دراد وكي كل واقعي عندما أوديه رئيس الوزراء وهو صدق فرماتشا بوقي قيلة كرنا لطينا إلا ما أنت إن روبل نيد أي كتبته ولا ريال روبل وحدوني إنه صار لسه الدولة دوني لكن فرماتشا وحو حنبي دمان أوديه يصير نبو حنبي marka la yiraahdo waxa kale oo la sheegaya ama hawiya sheegay inuu farmaajo uu maanta isagu awooda ugu sareysay uu leeyahay laakiin Roble maanta way bahdileen maamul goboleedyada walaalayaal inkastoo maamul goboleedyadu isku jiraan hawiya daarooda isku jiraan oo inta badan waxa baawarka ama awooda iska leh ay daarood iyo hawiya yihiin oo maanta inta dirtii ay yartahay walaalayaal dir waxa ka dhaqdhaqaaqaya dir ani kuma arka dhaqdhaqaaqay laakiin hawiye waxaan arkaya ku hardamay daaroodii waxaan arkaya iyo hawiye ku hardamay hadaba Roble maanta way ku gacan saydeen inuu ka soo qayb galo shirka albaabadan way ka xidheen warqadii ay u diri jireen casuumaadana way iska diideen warbixin ay soo saareen hadaba waxaan leeyahay hawiye hadalkan ku dhawaaqay ma ku raacsan tahay waxaan doonayaa dadka gadaal ka soo galay inay nagu cisho hadalkii maanta ay ku dhawaaqeen dhammaan waxa jooga hawiye sidoo u dhan yahay waxayna ku dhawaaqeen in farmaajo uu yahay madaxweyne qabiil oo mareexana oo qabyaaladiista dhintaya una ahayn madaxweyne dalkana uu iskaga tago walaaliyaan wadarkiisa waa kuwa wadarkiisa farmaajo waa mareexaan waa qabyaaladiista dhintay bay leeyihiin wadarkiisa farmaajo ma aha madaxweyne yidhaahdeen waa madaxweyne qabiil bay yidhaahdeen mareexaan inna lillahi wa inna ilayhi Soomaali xaggaasay taagan tahay walaalayaal xilli aan adduunka lo jaan qaadayna anigu ma garan karo adduunka inaku Soomaali haddaan nahay inkaarta inagu dhacday ma garanayo walaalayaal ma dambiyaan galnay waxba la inaga jafaya ma garan karo Soomaali sidaan baan isku dhagsanay la aakhiradi sidaan baan isku dhagsanaanaya hadaba hawiye waxay ku dhawaaqeen inuu farmaajo yahay qabyaaladiista dhintay una ahayn madaxweyne inuuna yahay mareexaan sida iyagu afkooga ay ka sheegayaan wad maqlis maaha afku ka sheegay TV-ga Rays Hotel malaha dhagaha dad wax yar dhagaha qofka dad yar dhaga culustiin wax yar baan nagu celiyaa farmaajo wuxuu leeyihiin hay nagu soo cesho dhaguhu haday wax yaraad maqlayn farmaajo waa mareexaan bay yiraahdeen waa qabyaaladiiste yiraahdeen ma ahana madaxweyne yiraahdeen waxay yiraahdeen hawiye mar hore ka saar laakiin hawiye madaxdooda ama hogaamiyaashoodu way baqayaan oo waxay ka baqayaan hadii ay dagaal ku qaadaan oo kale ama ay dagaal la beegsadaan maanta farmaajo wuxuu sameystay ciidan buu dhistay xagga maanta farmaajo ka dhaqaaqi laayay anu marno nagaado ciidan buu dhistay ilaalinaya maalin dhowna laba diyaaradood oo ciidana ayaa laga soo rogay oo gada ka yimiday oo dhamaantii ka soo jeedo waliba ciidanka uu dhistay daraawiishta leeyahay dhamaan inta ciidanka waxa ku jira nimanka la yiraahdo daarood baa ku jira wasangeli dhulbahante ogaadeen ma jeerteen leelkase dhamaan waxay ku jiraan ciidanka isagu sida gaarka u tababartay hawiye wuxuu isku halaynayaa niman la yiraahdo habar gidir iyo abgaal buu isku halaynayaa iyo xagga mursadana uu gabar ka qabo xagga mursadana uu isku halaynayaa mursade way difaaci karaan sababtoo gabadha uu qabo waa mursade farmaajo madheertiisu waxay taallaa oo ku dhashay magaalada muqdisho ee maanta loo diiday la leeyahay ka bax waa ku nacnay haddaba farmaajo waxa lagu dhawaaqay inuu mareexaan yahay una madaxweyne ahay haddaba waad ogeydeen dhibaatadan xagga ay ka tagan tahay wali waa la fahmi laayay gabadhii la dilay waxa lagu iloobay wiil waxay noo yimiday Tanzania wax ka yimid oo la yiraahdo Basadiir
وحالي فنان ماهن وأنا سومالي إنه وحبين نجا قلدان حتى نكا تنسانيا عد قرنا يسمتيرتو إنك كنا ربادين مدرتين أيام بونبونيني وشو والله قبطي وليبر دقن حمضة وقصة ما هي مقالة المقدشة لياب بيكون نقد الشيخ دي ميكي كبراروين لكن لياب بيكون نقد قبل دح جوجتي waxay soo bandhigtay waa laga yaabay qaabka ay u ciyaaraysa isku jajabinaysa wala la yaabay hableendii Soomaaliyeed wala xagga socdaan adduunku waxa la moodaa in inaku maanta aan soo marayno 2000 soo marayno haddaba basadiir wuxuu ahaan jiray mataajilayste inta badan la soo matali jiray gabdho Tansaaniya oo inta badanna iska haawiil qofba Tansaaniyada lagu sheegay cido ma garanayso حتى الريم مقدشنا هنا ولا ليال وان بونبونيني ووحي سميني حالي هبلهينو والله واتقتشلي أمود أوي ولا ليال وحي سميني هبلهيني ويل كيمدي أفريقيا تنسانيا نفعا لهين وعندنا أين الدونين قبلين وحي كسميين لياب بكسميين حالي وحي صوبر لك تقبل الله يداهدو إن قبل لبحضي إن سليخ لبحضي وحي صوبر لك تنفتك بحيس وحبان كتو سيئين عجيب وحي صوبر لك أنا أوي ولا هي ولك إله بفودا شيء أقرب صوت دعوانيا أقرب صوت دعوانيا ولك بل نعس كاكدم نعس كاكدم بأي سور كحيران قبل سيدو ودعوانيا بل إله بين يقول أشياء لقن كأن مرينا ولا عليها عليك الدنيا ولا قلتك شرفتنا ولا قلتك ولا عليها لكن وحن كجرنا الدنيا رقمت بان كجرنا حبلهن إني مانتا إسقاويان ويتمها قاويان ورقينا كدل نيكيان أي كد هرتو ذا أي كفور رصدان لقن كان أي سميان وحكوين أي نقص صعدها دان قبوينو أما الشيخ دان لك شوينو ولا عليها ووحيابا هلا قاويان هذا با حالي عيارتنا يصوبان ديك تيداد كورنا بالله يابي واتا فليك إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون قبل واحد موديسا إنه الشيطان قلاد موديسا سيسكو جاتشبينيس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا إليه راجعون إله وخاطمة خير نقولك ما قرن كرانو هوشا المر هدان شيخ يراهي هولها نوكله آد بانوغنحا إمكا قبل داسي رقي أي لدالتي أما ولا لهيدا ما أبتياشيد محيكو كفتامي كران قبل سaan ragga ugu horneekinaysa oo waliba aad moodayso inuu jin ku jiro qaabka isku jajabinayso heesta ay ku ciyaaraysana waa hindi weey adduunyo waxaan ku jira rugmada walaaliyaal okay haddaba inta ka basadiirna waxaan leeyahay muqdisho walaaliyaal ka fiirsada dhaqan xumo la gimiday khamri buu leeyimta xashishad buu ku dhaxabayaa dhalinyarteen ayuu halaynayaa ka fiirsada basadiir dib ugu cesho Tansaaniya inikoona waxba gaarsiin karaafa oo xidhin walaaliyaal okay inta ka gudbo walaalayaal barnaamijka aan u guda galo inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun wiil ka soo jeeda abeeshaysa ayaa ku dilay laba hablood oo hawiye ah dalka Ustari caasimadiisu ay tahay Vienna wiilkaasi labada gabdhood ee hawiyaha wuxuu ku dilay qaab la yaab leh ayuu ku dilay gabadha abgaal bay ka soo jeeda Allah u naxariisto maanta way naga hoosaysaa weli ilaa xilligan meydkeegi lama aasin ama aaski lagama qayb gelin laakiin waxay ku jirtaa galaaseerka ayay ku jirtaa waa la baarayaa wiilkani gabadha waxay kala tageen 2 sano ka hor wiilkani gabadha waxa uu haysay hal cunug ba uu haysay bil nasiib habeen ayuu u yimiday iyadoo gurigeegii iska joogta ayuu guriga uga soo galay waxbaan ku hayaa buu yiri inta badan telefoonka ayuu ku celcelin jiray ama uu sasaban jiray si uu dib ugu soo laabto laakiin iyadu way ka diiday oo xaasha bay tiri inaan isku soo laabano wixii shalay aan ku kala tagnay
unbaa meesha yaalla. haddaba ilaahay wiilkan gacan ku dhiiglaha kana soo jeeda beesha isaaq ayuu sabab uga dhigay inuu dilo laba hablood. wiilna uu damco inuu dilo, laakiin wiilka ilaahay baana tiisa dhammayn qaabka uga baxsaday. bal wax yar baan idin dul maraya. gabadha xaaskiisa marka uu guriga ku soo qoraacay, midida shafka ayuu ka geliyey, qoortana uu ka geliyey. inkastuu si xun la dhacay, sida uu dilayna ay si arxan darro ahayd. gabadha labaad iyaduna hawiye ka soo jeeda qaab kale wuxuu ku sameeyey la yaab leh. gabadha telefoonkeeda ayuu message uga diray oo ku yidhi gabadhayda waxaan doonayaa inaad caawisid. gabadha iyadoo cararaysa ayay timiday oo gurigii ay soo gashay, iyadana uu raaciyey. wiil saddexaad ayuu isyidhi isagana dil, uu wacay. kabacdi wiilkii markuu gurigii soo gelay, bal ilaahay marka ayna taadu dhammaan waxaad u fiirsataa, waxyaaba badan baa shanqar baa kuu baxda. wiilkii wuxuu la yaabay, ninka naxsan buu la yaabay. albaabkii marka qoflu ku yidhi soo gal. ma soo galaya, maxaad iga doonaysaa ii sheeg buu ku yidhi. maya soo gal buu yidhi, gudaha ku wada hadlaynaa, gabadhaad caawinaysaa, gabadha iga xanuunsanaysa. uu shakiyey, wuxuu ka shakiyey wiilka gacmihiisa iyo dharkiisa waxoogaa dhiiguu lahaa. bilnasiib ninkii dib buu sii gurtay, wiilkii dib buu sii gurtay. markaasuu mididii la soo baxay, uu la daba cararay. bilnasiib ninkaa waxa badbaadiyey shaki iyo tiisuuna ilaahay qorin. bilnasiib booliskii guriga waxay ugu yimaadeen labadii hablood oo mayda iyo wiilkii oo jidhkiisa marka la baadhay laga helay daroogo. khamri badanna uu aad u cabbay, uu xadkiisii dhaafiyey. inuu markaa cabsanaa weli waa la baadhaya, iyo inuu markii cabbay lama kala garanayo. haddaba dadka waqooyi ka soo jeeda, dadka koonfur ka soo jeeda isma dhaqan fahmayaan. xagga guurka isma dhaqan fahmayaan. laakiin hablaha hawiye waxaan leenahay oon baaq u soo diraynaa haddaan nahay tv-ga Rays Hotel. ka fiirsada wiilasha waqooyiyeed guursanayseen. dhaqankooga waa dhaqan ka bedelan dhaqanka muqdisho aan ku leenahay ama dhaqanka aan ku leenahay gobollada kale. reer waqooyigu inta badan dhaqamo gooniya ayay leeyihiin. waxaan kaloo inii sheegayaa inta badan ragga la yidhaha hawiyuhu iyo madaaroodka mise dirta mise hawiyuhu inta ugu badan baalka khamriga la yidhaahdo uu ku yaryahay. laakiin nimanka waqooyiga inagoona qabiil u kala saarayn, tuufaas ayay u cabbaan, daaroodkuna kaba daran ba walaalayaa. haddaba waxaa la doonayaa habluhu inay ka fiirsadaan qofka ay guursanayaan. labadaa hablood maanta dad baa soo dirsaday oo doonaya anficii maanta ay ku soo bixiyeen inay cunaan. ilaah baan inagu dhaarshay gacan ku dhiiglahaasi uu ilaahay ku sababay ayaa dilay. isagana jeelka ayaa la geeyey. kolleyba 15 sano inta lagu xukumo ama inta irbad lagu mudo ama ayaa dalkii dib loogu tuuri doonaa. haddaba ta ugu daran waxa weeyaan gabadhii yaraydna ee dhashayna dowladda ayaa la wareegtay. caalamku wuxuu qorayaa ama Australia ay qoraysaa ama Vienna caasimadooda waxay qoraysaa la yaab ayay ku noqotay dadkii jaarka ama dadkii u dhawaa. waa maxay Soomaalida waxa waalaysa? ka wax dilay waa Soomaali, ka la dilay waa Soomaali, ku kala Soomaali buu ahaa. dhammaan Soomaalidii waxay noqdeen in il gooniya loo yeesho. waxay ka sameynayaan Yurub. dadkani maqaraxya ayaa madaxa kaga jira. dadkani may waalan yihiin, may fayow yihiin. waa maxay waxa muxuu ahaa qoomiyadaha kale ee iyagana Yurub yimaada maxaa ka bedelay iyaga? weli way la yaaban yihiin dadka reer galbeedkii. haddaba dhalinyarta waxaan leenahay waxyaabaha noocaas oo kale waa in laga fiirsada ama iska ilaaliyaan. ma odhan karno gabadha wiilku markii dambe lasoo baadhay khamri ama drooga ayuu aad u cabsanaa, jirkiisuna hawada ayuu marsanaa. booliskiina waxay ugu soo galeen labadii hablood oo mayda. allah u naxariisto. labada hablood da'dooda waxay ahaayeen 35 iyo 43. inkastoo gabadha ilmaha haysata ay gabadh yar ahayd. inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. walaalayaal gabdhaha wiilasha aad guursanaysiin ka fiirsada. waxaan kaloo inii sheegayaa inta badan walaalayaal dhaqanka dadka aad guursanaysiin ka fiirsada. dhibaatada noocan oo kale way ku soo badanaysaa dalalka Yurub. marka
hablaha waxaan leeyahay oon ku waaninayaa ka fiirsada walaalayaal dadka aad guursanaysiin reer waqooyiga isma fahmaysiin hablaha hawiye ka soo jeeda bal iska fiiriya inta badan reer waqooyigu khamriga aad bay u cabbaan marka haddaad wiil guursanaysid ka fiirsada marka hablaha hawiye marka waxaad noqonayseen inaad ka digtoonaateen wiilasha waqooyiyaad guursanaysiin 90% wiilasha waqooyi ka soo jeeda qamriga aad bay u cabbaan iyo xashiishka inta badan ma arkaysid hawiye ma arkaysid khamriga cabbaya laakiin waad arkaysaa ama indhahaga waad taaraysaa wiil daaroodoo cabbaya ama wiil ka soo jeeda dir oo cabbaya inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun labadii gabdhood hadda meydkoogii lama aasin waxaan doonaynaa haddii alla yidhaha inaan ka qayb gallo meydka haddii alla yidhaha ama aaska laakiin dowladdu weli kama soo saarin go-aan inkastoo ay baarayso wiilkiina loo taxaabay jeelka walaalayaal ta kale ini sheega waxa weeyaan inta badan waa inaad waxyaabaha dhaqanka aanad ka tegin waxaan leeyahay inta badan ilaahay hay naga dhigo rag haysta walaalayaal tiirka allah mar kastana walaalayaal dadka yurub jooga ayaan ka hadlaya waa u baydha diinta u baydha oo iska ilaaliya dhaqamadan macan haddaad khamri cabtid khamriga iska daa dad baa ku soo dirsaday 5 salaadood waqti iska tuko dadkana waxa ugu wacan walaalayaal stresskiiba aad u buuxiya ma shaqaysanayaan nin kasta uu soo toosaya uu seexanaya habeenkii buu saamuleynayaa wuxuu ka dhiga waqtigii habeenkii inuu soo jeedo dharaartiina hurdo marka qofkii stress ba ku dhalanaya guri baa la siinayaa lacag baa la siinayaa kabacdi waxay noqonaysaa qofkii inuu isagii isla hadlo laakiin markuu qofku shaqaynayo ilaahina ku xidhan yahay uu 5 waqtina ku xidhan yahay qofkii uu qaboobaya qalbigiisa qaboobaya walaalayaal anaku haddaan nahay sheekh haddaan nahay ama haddaan culimada waaweyn mani laakiin haddaan culimada yaryar nahay mar kasta wiilasha waan waaninaa inta badan Sweden wiilasha waxay ku xumaadeen turub iyo khamaar iyo waxaas ciyaaraan meelan tagay Sweden oo maqaaxiyaan booqday wallahi waxay ku jiraan waad la yaabaysaa meel kasta gidaar bay taagan yihiin walaalayaal wala la yaabay cadaanku la yaabay meel kasta gidaar bay Soomaali istaag baba leedahay meel kasta Soomaali baa taagan inna lillahi dhaliyati Soomaaliyeed walaalayaal waxay ku sugan yihiin khatar bay ku sugan yihiin maalin kastana waxaad maqlaysaa midda la dilay midda wax dilay maalin kasta hooya ooyaysa walaalayaal haddaba naftiinaba waxaan ku weynayaa taqwada Allah ilaaliya walaalayaal inta badan waxyaabahan hablahana waxa leh bal hablow is ilaaliya kullayba ilaahayba wax ilaaliya laakiin dadkaad guursanaysiin iyo waxa la yiri qofaad garanaysaa la guursada laakiin qof aanad garanayn inaad guursad ku degdegtid inkastoo calaf ku jiro laakiin haddana waxa ku fiican inaad iska ilaalisid ama adeegto qofkan wuxuu yahay marka hore iska tijaabi walaalayaal barnaamijkan ugu talagalay caawa hawiye ku dhawaaqay inuu farmaajo ahayn